kadib markii loo gurigeeyay ayuu qolkii jiifka ugu galay gabadhii iyadoo xijaaban. kadib ayuu ka qaaday xijaabkii mise aad ayuu uga naxay aragtida gabadha oo aan qurxooneen. wuxuuna isweydiiyey, aabbaha muxuu sidaan ka waday oo uu kuugu dooray midaan xun? kadib isagoo niyad jabsan ayuu iska seexday. habeenkii saq dhexe markii la gaaray ayaa gabadhii kicisay ninkeedii oo ku tiri, kaalay tuka salaatuleyl. markaasi ayuu ka diiday, iyadoona markaasi ka quusan weyday ayay kacday oo biyo soo qaadatay kadibna ku shubtay si uu u kaco. markii uu u kacay ayay ku dhacday hadal qalbigiisa taabtay, waan ogahay inaad iga niyad jabtay, weliba waan ogahay in aan fool xumahay, laakiin aniga waxaan guurkaaga u ogolaaday hal arrin. fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelkan subscribe saar, gambaraalka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada diiniga aan baahino. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaaladeena. like-na saar waxay noo tahay dhiirigelin, oo la wadaag asxaabtaada khayrka jecel. ku soo dhawaada dhegaystayaal qisadan aan cajiibka ah. waan hubaa haddii qisadan aad dhamaysato in dareenkaaga uu isbedeli doono. nin iska shaqaysta oo ku nool waddamada khaliijka ayaa muddo 4 sano ah markii uu shaqaystay oo uu helay lacag ku filan ayaa waxa uu doonay in uu guursado gabadh. markaas ayaa waxa uu u tagay aabbihii oo ahaa nin caalim ah oo wadaad ah, masaajidna imaamka ah. wuxuuna ka codsaday in uu u dooro gabadha uu guursan lahaa, weliba uusan doonayn in uu la kulmo ilaa habeenka guurka mooye. kadib aabbihii oo ahaa nin caalim ah oo diinta ku xeel dheer ayaa u doonay gabadh diin leh laakiin aan qurux lahayn. kadib markii loo gurigeeyay ayuu qolkii jiifka ugu galay gabadhii iyadoo xijaaban. kadib ayuu ka qaaday xijaabkii mise aad ayuu uga naxay aragtida gabadha oo aan qurxooneen. wuxuuna isweydiiyey, aabbaha muxuu sidaan ka waday oo uu kuugu dooray midaan xun? kadib isagoo niyad jabsan ayuu iska seexday. habeenkii saq dhexe markii la gaaray ayaa gabadhii kicisay ninkeedii oo ku tiri, kaalay tuka salaatuleyl. markaasi ayuu ka diiday, iyadoona markaasi ka quusan weyday ayay kacday oo biyo soo qaadatay kadibna ku shubtay si uu u kaco. markii uu u kacay ayay ku dhacday hadal qalbigiisa taabtay, waan ogahay inaad iga niyad jabtay, weliba waan ogahay in aan fool xumahay, laakiin aniga waxaan guurkaaga u ogolaaday hal arrin, taasoo ah inaan fuliyo oo aan ka faa'iidaysto ducada nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam oo ahayd, allaha u naxariista ninka habeenkii u kaca taajud una kiciya xaaskiisa, kadibna hadday kici weydo ku daadiyo biyo si ay u kacdo. sidoo kale haweeneydii taajud u kacda kadibna ninkeeda u kicisa tahajudka, hadduu kici waayana biyo ku daadisa si uu u kaco, allaha u naxariisto. marka aniga sidaas ayaan rabay in aan sameeyo si ilaahay igu naxariisto, waxaana ogaa fursad la igu guursan karo in ay yar tahay, sababtoo ah ma qurxooni, nin i rabana ma lahan. ninkii aad buu isku ceebsaday, wuu kacay, salaadii buuna tujiyey isaga iyo xaaskiisa. sheekha sheekadaa ka sheekeynaya waxa uu yidhi, ilaahay baan ku dhaartay. ninkii wuxuu yidhi, markaan salaada ka baxay oo aan gabadha wejigeeda eegay, waaba naagta dunida ugu qurxoon ee aan ebid fiiriyo. subxaana allah, u fiirsa sida rabbi uu ugu abuuray jacayl qalbigiisa. haddii qisadan ay ku cajab gelisay, la wadaag saaxiibada. mahadsanidin.